arrintani waa dhacdo ugubka ah xisbiga kulmiye haddii madaxweyne Muuse Biixi u arko doorashadiisa gudoomiyaha xisbiga kulmiye loo doortay guul xisbiga kulmiye u soo haygatay waan ka aragti duwanahay waxaan aaminsanahay inay tahay guul darro xisbiga kulmiye guulgal u yahay maanta waxaan leeyahay saaxiibkay madaxweyne waxa tahay nin weyn oo aan gu iyo garasho u dhinayn waxa tahay dhowriyo 70 jir nabigeenu nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu yidhi inna a'maara ummati ma bayna 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuusu dhalika ummadayda cimri dhererkeedu marka la isku celceliyo waa 60 ilaa 70 inta u dhaxeeya in yar baa halka dhaafisay buu yidhi dhowriyo 70 dhowriyo 80 dhowriyo 90 boqol waxaad ku jirtaa alle galadii intii farku tiriska ahayd ee ka gudubtay ama ka dhowriyo 70 oo cimrigoodu dhaafay ayaad ka mid tahay maanta waxa tahay cadceed casar joogta cimri ku dhiman iyo aqal ku dhimanina ma jiro mansab ku harayna man jiro oo aad higsanaysaa madaxweynihii qaranka tahay waxaad maanta garan weyda garan maayo goortaad garan doonto ama gaari doonto waxaan leeyahay Muuse halkani waa halkaad jannada ka geli lahayd haddaad noqoto imaam caadila oo ummadiisa ilaahay dartii si daacadnimada ugu adeega sidoo kale waad ku naar mudan kartaa haddaad ammaanada dayacdo iyo mas'uuliyadda aad hayso madaxweyne maanta adiga oo daa oo jooga aakhirul cimri waa nasiib darro weyn in lagugu tuhmo inaad ku foogan tahay adduun urursi iyo dhulbood Muuse saaxiib cimri tagay ceeb laguma sagootiyo haddii dareenka dadkaaga isaga baxay dacal iyo daraf uu run yahay alle ka cabso oo u toobad keen oo tubta toosan qaad